waxaa farxad weyn ah inaan munaasabaddan ka soo qayb galo xariba sharafeedka aynu ugu samaynay golaha deegaanka ee caasimadda Soomaaliland iyo golaha deegaanka magaalada Burco ee labada xisbi ee mucaaradka ah ka soo baxay. waxaa kaloo Ilaahay mahadiya in arrimuhu inoo soo urureen aynu maanta in hor fadhiyaan labadii musharax ee labada maayar aynu sharaxnay iyo labadii musharax aynu sharaxnay labada maayar xigeen. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacbiga reer Soomaaliland ee nabadda ku codeeyay ee isbeddelka u codeeyay. waxaa markaa isbeddelka ummaddu u codaysay dhalinyarada aynu maanta u sharaxayno maayarada iyo maayar xigeenka oo arkaysa intay da'doodu leegtahay. waa isbeddelkii dhabta ahaa ee ummaddu u codaysay. waxaan kaloo mahadnaqayaa institutionkii ama hay'addii qaranka ee inoo maamulaysay doorashooyinka komishanka qaranka iyo ciidamada ammaanka iyagoo nabadgelyada ka shaqaynayay. waxaa iyaduna guul u ah labada xisbi inay samaystaan isbahaysi siyaasadeed. isbahaysiga siyaasadeedna kuma cusbo Soomaaliland. 2005 xisbiga kulmiye iyo xisbiga u cid baa samaystay. isbahaysigaas ku soo baxay anigu inaan noqdo gudoomiyaha baarlamaanka. waxaan maqlay qaar kulmiye oo isbahaysigu waa xaraan. mabarigaas u too xalaalaha asiibaha. marka waxaan u mahadnaqayaa mudanayaashaas oo runtii iyaguna dee waqti badan iyo dadaal badan iyo tacab badan soo galay inay ka soo baxaan tartankii adkaa ee la soo galay ee labadii doorasho ee saaraa. waxaa Ilaahay uga baryayaa in ay waajibkooda Ilaahay u fududeeyo, waajibkooda ay ka soo baxaan. adeegga ummaddu uga baahan tahayna adeegga dhabta ah ummaddu u baahan tahay waa adeegga dowladaha hoose bixiyaan. hadday caasimadda tahay iyo hadday Burco tahay iyo hadday magaalada kale intaba tahay. marka dadku waxay idinka filayaan adeeg wanaagsan oo bilicda magaalada, nadaafadda, wax ka qabadda waxbarashada, dhammaan adeegyada ummaddu u baahan tahay ee ku xidhan noloshooda inaad ka qabataan baa laydinka filayaa. inaad beddeshaan muuqaalkii hore ee shacbigu uga soo baxay deegaanadii hore musharaxiintii idinka horeysay. waxaan idinku ducaynaynaa in Ilaahay hawsha idin fududeeyo, waajibkiinana idin garansiiyo. dhalinyaro yar baa tiinada siyaasadda soo fuushay. laba mid uma noqonaysaa inaad jaranjaradaa soo fuusheen kor u fuushaan iyo in laydin haaraamo oo halkaa dub uga soo noqotaa ma mid noqonaysaa. insha Allah dub uga soo noqon maysaan. waxaa aan shacbigana u sheegayaa uun tartan baa la galay. tartankii dee ummaddu isbeddel bay codaysay. isbeddelkii waxaa hogaaminaya labada xisbi. insha Allah dad magaalooyinka wadeega iyo baarlamaankaba ayay labada xisbi keeni doonaan. xoogna ku fuuli maayaane tartan bay ku fuulayaan. waxaan cid kasta waxaan ku oranayaa oo ilaalada shacbiga ha loo hoggaansamo.